waxaanu maanta socdaalnu ku tagnay degmada Dila oo ah afaafka hore laga soo galo gobolkani Awdal ayaa waxaan u guurgalaynay xaaladda abaareed ee ka jirta bariga Somaliland. dad fara badan oo ayaa muddooyinkii u dambeysay ku soo qulqulayay agagaarka degmada Dila. goobtaasi aanu gaadhnay ayaa waxaa ku sugnaa duqa degmada Dila Ibrahim Cabdi Xaaji Tubeec oo isagu ah mas'uulka degmada Dila waxaana ugu horeyntiiba faahfaahin ka bixiyay kani faraha badan lee soo hayaamay ka soo jarmaaday deegaanadoodii ee hadda ku sugan degmada Dila waxaana tilmaamay culays badan waxa ku soo qaxay dadkii abaaruhu hayeen ee bariga shalay inta saaka timid u baan ogeeyna shalay waxa intii joogtay way noo tira koobnayd waxay ahayd 215 qoys baan haynay saakala waxaan hubaa in 30 gaari meel qiyaastii ay yimaadeen oo 6 meel aan dejiyay iyo 6 kale meel la dejiyay kuwa kale oo aan anaga wala soo marinay areeraha naga maray oo meelaha ku baahinay way jiraan deegaankii waxa soo furay culayska inta leeg bulshada reer Dilaaq si fiican bay u soo dhaweysay waan wacyi gelinay meel kasta oo kamid ah deegaanka dadku free way madax banaan yihiin waa saaka wadadaan u joogsanay waxaan dejinay intooda badan meel dabacada la yiraahdo ban qaar dunay qaar waxaan u duray jaaraawrato qaar satiilaan u dunay qaar tulli baan u dunay inba meel baan geynaynaa si ay xooluhu kala baahan laakiin dhibaatooyin badan waa jiraan waxa kamid ah deegaankan aan joogno waxaad ogtahay waxaan ku jirnaa bishii November December waliba way soo socotaa waa bilaha ugu dhaxanta badan deegaanka ay ka yimaadeen dhaxan ma laha sidaas awgeed dadka waxa haysa caruur yar yar maadaama ay wataan dhaxan aad u badan baa haysa waxa sameynay degmada guddidaasi oo aad arkaysa guddidan maanta ay la joogtay halka aad ku arkaysaana kulay magaalada dhex mareen hanti bay uriyeen iyagu qaaraan bay iska jareen waxay soo iibiyeen dhowr iyo 20 bundadood oo huudheero bustayaala kiibaan saakaysan ilaa ku arkaysay qaybinaynay intaasi ka bacdi shabakada caalamiga ee Boromo News oo wax ka weydiisay dadka ka soo hayaamay deegaanadoodii oo hadda ku sugan degmada Dila ayaa waxay tilmaameen alxamdulillaah rabbil caalamiin anigu deegaanka balli mataan baan abaar baan oo ballaaran ayaan haysay muddo imaka 6 bilooda hantigu aad buu ugu dhintay geela iyo ariguba ka soo waado kolkii aan halkan nini dad sharaf leh oo qiimo badan oo islaama ayaanu deegaanka ugu nimid si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo walaalnimo ah ayay noo soo dhaweeyeen waxaanu ka soo guurnay inay gare tuulaha leeyahay inay gare bal ka waran deegaankii aad xoolaha ka keentay abaartii jaagtay iyo halkan aad joogtimiday labadaasi waa laba kala fog weeyaan oo taasina waxay abaar aan waxba kala reebahayn oo xooluhu ay sidaas u yaacayaan oo aanay waxba cunahayn halkan markii aanu keenayna way gaajo baxeen oo kuwa iska taagtaagan imika markii gaajo baxeen dadka halkan aad ugu timid deegaanka ka waran deegaanku waa deegaan wanaagsan dad wanaagsan weeyaan oo si wanaagsan bay noola hadleen oo waxay yiraahdeen inta yare raashinku ku siiyay yaal nooga yara waabaabiya inta kalena ha iska daaqo waxay ku kala duwan yihiin xoolo gaajooday oo hadee la jilcay baanu ka weenu iyay haayeenoo imanka wax way daaqayaan laakiin tii jileeci wali way qabaan iyo xumaantii tigaad ma heleen waajo way gaajo baxeen dadweynaha dadka halkan deegaanka ku degan sidii soo dhaweeyeen si wanaagsan dad ma hasan weey wax dhibaato oo aad haystaa ma jiraan mayo nagu hayaan ma jiro waxa iyagu aanu wadanay foolxumadooda uun mooyaane dhibaatada abaarta ilaahay keenay arrin ka dhacday hay banka tooye miyaa taqaan wadahay wala garanay banka tooye kaasaan ka soo guur hay xaaladiina caafimaad waa sidee tooye wala yaqaan xoolo ma dhamaan laakiin way naga jilicsan yihiin wax dhintayna way leeyihiin waana naga jilicsan yihiin oo subaxan saaka bay baqteen oo jiidayna xaaladda iyada ilaahay baa yaqaan marka
sidoo kale waxaa halkaasi isaguna soo gaadhay intii aan ku sugnaa degmada Dila ee ka tirsan gobolka Awdal siyaasi Maxamed Cabdilaahi Obsiye oo ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland ee ka soo jeeda degmada Dila isagoo u guurgalayay muddooyinkii u dambeysay xaaladda ka jirta degmada Dila taasi ka bacdi socdaalkii aan ku tagay degmada Dila intaasi kuma u koobnayne maayirka degmada Dila iyo siyaasi Maxamed Cabdilaahi Obsiye ayaa booqday goobaha kala duwan ay dadkaasi ku sugan yihiin dacwalay oo ka tirsan degmada Dila يعني وان أوجا محها مالنا إذا أنتبهت كيميد هالكن يعني تدخل بابور تأسرين هين يصير لود تشينيو أنت بوانا كي ساكنا هرجي ساك سوق الله هاي مركب وحلا كل ما يجوا قايبين إياه وحيا كودري كريه كودري لما في الريموت باربعين هالك كودري لما في الريموت مدوحوي حكومة الصوماليلاند يعني ودريا فرين طلباتنا وحنو دريا قرب تشوجا تذكرت تشوجا الرئيس الصوماليلاند ماشي دونا بهالشوجان ماشي دونا بهالشوجان وعوي تذكر أبار باصوب كرسي أبار يعلنا وحلقة الله بريو dadku gibe hadda dhex joogan sidaas wali muxuu ahaa leysma gaadhin way soo socotaan dadkastood ka laabatidba meel kastood milicsatidba inuu harkaagu istaago maad istaagi karayba sababtoo ah waxay ahayd meel uu yaalo meydka xoolaha soo wada duubo maayirka degmada Dila iyo sidoo kale siyaasi Maxamed Cabdilaahi Obsiye ayaa iyagu gaarsiiyay macluumaadka dadka ay u baahan dadkaasi oo soo barakacay waxayna sidoo kale fariimo kala duwan u direen qulbajoodka u dhashay deegaanka Dila inay u soo gargaaraan dadkaasi tibaalaysan ee soo gaaray degmada Dila oo ka qayb qaadanaysa samata bixinta iyo gurmadka loo wado dadkaasi iyagu abaartu soo kicisay waxayna ugu dambeyntii fariin u direen madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo inuu kaalintiisa muhiim ka qaato soo gaaray waa kuwa way daaqayaan laakiin waxayna yamaha kulli ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga soo gaaro magarsa maxaa dadka soo gaaro kulli waxa loo baahan yahay wixii aan qaban karno waan qabanaynaa oo sidii maayirkuba idin sheegay da wixii aan magarsa maxaa talagalka iyagu ahaa ma awoodayadu ahayd waan wadnaa waan dejinaynaa dadkana waan soo dhaweynaynaa waxa se loo baahan yahay oo magarsa maxaa ugu baaqayaa hay'adaha caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadkaba horta waxa muhiima dadku biyada ka yimaadeen iyo biyadana yimaadeen waa kala laba mid kale waxa weyn xoolihii waa la isku wada keenay waxa laga yaabaa baqti badan iyo magarsa dhimasho badan way leeyihiin Cabdilrasaaq Cumar Miicaad Cabdirasaaq Qawliyo shabakada caalamiga ee Boroma News Boroma